xabsay soo ku diina diyaar mutahay soo shaqo kula dahay gobolada Soomaaliya gobolkee ugu qurxoon oo dalxiis u tii karaa oo lagu dalxiiso goldaga baa ku taalo oo meel lagu dalxiisa caano geel oo kulul ah ka soo helaysi hilib geel muqdisho maxaa ku doortay ana ku dhashtay meesha ma gobolada Soomaaliya waxa qurux badan oo dalxiis u tii karaa gobolka Banaadir quruxdeeda waa meel loo dalxiis tago macna sawir hadii loo dalxiis meel kasto gobolka ugu qurxoon oo dalxiis loo tii karo waa gobolka Hiiraan weeyaan lagu soo dalxiis doortay aad iyo aadan bilicdeeda ugu doortay si fiican waa gobol soo jiidasho leedahay gobol soo jiidasho aad u macaan badan waa gobolka ugu quruxda badan waxa waaye gobolka Baay maxaa ku doortay waxaan ku doortay Cisha Baydhabo aad ay u qurux badan tahay gobolka Soomaaliya ugu qurxoon anigan cidna gobol la ka yaxaan gobol loo yaxanayn si xaqa su'aasha ugu jawaabaya horta gobolka Soomaaliya ugu haylaansan ugu dheero 800 fi Soomaaliya ka sareeyo dhaca dawteen waa qayb kale ee barnaamijkeena galka dadweynaha iyo su'aasheena maanta shacabka Muqdisho waxaynu weydiinaynaa maanta su'aal fanni ahayd si gaar ah u taabanaysa dalkeena hooyo ee Soomaaliya su'aasheena maanta waxay ahayd gobolada Soomaaliya gobolkee ugu qurxoon kuna wacan dalxiiska aan daawano jawaahay bixiyeen shacabka Muqdisho balse marka hore like share follow inta soo dhaha YouTube-keena iyo page-keena Facebook galka dadweynaha daawasho wacan shacabka Muqdisho su'aashan weydiinay iyo qaabkii uu racliyeen marka hore ku soo dhawow kanaalkeena galka dadweynaha adoo magacaaga noo bilaabay bismillaah aniga magacay lagu bilaabayo deeqa aadan maxamed neenaasteedina deeqa talyaani deeqa salaam ku weydiinaa diyaar ma tahay jawaab su'aasha waxa ku leedahay Soomaaliya gobolkee ugu qurxoon loona dalxiisay karaa waxa ugu qurxoon gobolka Banaadir maxaa ku doortay aad iyo aadan bilicdeeda ugu doortay si fiican waa gobol soo jiidasho leedahay gobol soo jiidasho aad u macaan badan waa maasantahay weynaha adoo magacaaga noo bilaabay magaca waxa la aqoonyahan Yaasiin Axmed Nuur Jibriil ka soo jeeda gaar ahaan gobolada waqooyi gaar ahaan gobolka Sanaag haddaan cabdo su'aal baan ku weydiinaa diyaar ma tahay diyaar baan ahay su'aasha waxa ku leedahay gobolada Soomaalida gobolkee ugu qurxoon oo loo dalxiisay karaa gobolka Soomaaliya ugu qurxoon anigan cidna gobol la ka yaxaan gobol loo yaxanayn si xaqa su'aasha ugu jawaabaya horta gobolka Soomaaliya ugu haylaansan ugu dheero 800 fi Soomaaliya ka sareeyo oo gobolka Sanaag la yiraahdo waa gobolka buuraha la yiraahdo Calmadow silsilad gooliska ka mid ah buurta Calmadow 12 bilood ee waqtiga waa gobol ifgreen oo cagaar waaye waa gobol barwaaqo oo cagaar oo biyo ka socday biyo oo beerale marka waxa ku taala buurta Soomaaliya ugu dheer la yiraahdo suurad la yiraahdo oo 800 feet ah wadan ka sareysa ah buurtaas ku taala daala la yiraahdo waxaan marka anigu waxaan qabaa gobolka Sanaag inuu yahay gobolka ugu quruxda badan gobolka gobolada 18 Soomaaliya waa gobol tropical ah waa gobol Scandinavian oo kala ah waa gobol aan isbedelin waa gobol macdana waa gobol dhinac kasta kheyraad ku leh waa gobolka dhulka xoolaad dhaqan macdanta nooc kasta ku jirta marka waxaan qabaa gobolkaas inuu yahay gobolka ugu dalxiiska ku habboon yahay gobolada Soomaaliya aad ma santahay marka hore ku soo dhawow galka dadweynaha kanaalkeena adoo magacaaga noo bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cali Cilmi Ibraahim waa ku dhawaay waa maasantiin galka Cali oo su'aalan ku weydiinaa diyaar ma tahay diyaar oo wahay su'aasha waxa ku leedahay gobolada Soomaalida ama Soomaaliya goboladeeda gobolkee ugu qurxoon oo dalxiis loo tii karaa gobolka ugu qurxoon oo dalxiis loo tii karo waa gobolka Hiiraan weeyaan lagu soo dalxiis sababta waxa weeyaan heeso badan oo laga tiriyaa jiro oo waxa waaye ku dhiirigelinaya dadka inay soo booqdaan sida waxa weeyaan Abu Hadraawi oo Beerula oo kaleete baarti muuqa dheeraad iyo waxa waaye adoo heesaha marka aniga waxay leedahay halka ina dalxiiska ku cadaan Hiiraan ku istay bulshadeenada meeshaas ku istaanay marka hore ku soo dhawow galka dadweynaha kanaalkeena adoo magacaaga noo bilaabay Nasriin Cabdullaahi Maxamed sababaan ku weydiinaa diyaar ma tahay su'aasha waxa ku leedahay gobolada Soomaalida gobolkee ugu qurxoon oo dalxiis loo tii karaa gobolka ugu quruxda badan waxa waaye gobolka Baay maxaa ku doortay waxaan ku doortay Cisha Baydhabo aad ay u qurux badan tahay waa meel oo yacni hindhaha iyo wax walba u fiican waaye maskaxda lagu dejisan karo marka adiga baayo ku haystaa baayo ku haystaa aad ma santahay waa tahay waxaan la joogaa laba nin oo dhalinyaro ah oo caasimadda Muqdisho ku nool su'aal baan weydiin doonaa marka hore adiga soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adi magacaaga bilowtay Saalax Muuse Axmed Saalax su'aalan ku weydiinaya gobolada Soomaaliya gobolkee ugu qurxoon oo dalxiis loo tii karaa muqdisho maxaa ku doortay ana ku dhashtay meesha ma adigana soo dhawow magacaaga
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحي ومحمد يوسف حسين. Soomaaliga wuxuu u qurxoon dalxiis u tegi karaa. قلمدك. حقا ساكو دشتنا وكسوبر بار عمل. Marka xagga taqaana marka. حقا ساخ أنا كويتا حمر كوايا سيقول هذا ما صدق. marka hore ku soo dhawow kanalkeena galka dadweynaha adoo magacaaga noo bilaabay. xabse maxamuud cali xabse su'aalan ku weydiinaa diyaar ma tahay? haa su'aasha waxaa ku leedahay gobollada Soomaaliya gobolkee ugu qurxoon oo dalxiis u tegi karaa? waxaa loo tegi karaa gobolka bari gobolka bari gaar ahaan boosaaso iyo maxay toqardhe iyo garoowe iyo galdogob marka si guud macnaha Puntland ku astaaday aniga Puntland ku haystaa maxaa ku darata marka saanta calanka aad ma santa rabtiga ayaa ka soo jeedaan marka meel dalxiis ku yeelan haa way ku yeelan adigu marka meeshaas waa tagay waa ku soo barbaaray marka meeshaas ku haystaa haa meeshaas ku haystaa waxaa ku taala laaga ku taala biyo kulula ku taalo dan oo lagu dalxiiso galdogob baa ku taalo oo meel lagu dalxiisa caano geel oo kulul ay ka soo helaysa hilib geel aad ma santa hilib ari aa dhehe aad ma santa adiga mudan walaaqan marka hore ku soo dhawow galka dadweynaha kanalkeena adoo magacaaga noo bilaabay waan dhawahay walaal magacaygu waa Cabdi Faarax Hayibi oo Cabdiro ku magac dheer Cabdiro su'aalan ku weydiinaa diyaar ma tahay? waa maasanta su'aasha waxaa ku leedahay gobollada Soomaaliya gobolkee ugu qurxoon oo dalxiis u tegi karaa? gobollada Soomaaliya waxaa u qurux badan oo dalxiis u tegi karaa gobolka Banaadir waxaa ku dooratay waxaan ku doortay waan ku dhashay oo ku noolay oo quruxdiisa maasha Allah ka qurux badan walada kale okay Banaadir ku astaaday aad ma astaaday marka hore ku soo dhawow kanalkeena galka dadweynaha adoo magacaaga noo bilaabay walaal waa dhawaa magacayga waxaa la dhahaa maqsuud maxamed xasan suraj maqsuud su'aalan ku weydiinaa diyaar ma tahay? haa diyaar oo su'aasha waxaa ku leedahay gobollada Soomaalida gobolkee ugu qurxoon oo dalxiis u tegi karaa? gobolada Banaadir Soomaaliya Banaadir aad dooratay maxaa ku dooratay marka quruxdeeda waa meel loo dalxiis tago macnaa sawir hadii laho dalxiis meel kasto marka dalxiis ku caan leedahay haa aad ma santa aad mudan marka hore ku soo dhawow kanalkeena galka dadweynaha adoo magacaaga noo bilaabay magacaygu waa Cumar Maxamed Cali. Cumar su'aalan ku weydiinaa diyaar ma tahay? diyaar baan ah. su'aasha waxaa ku leedahay gobollada Soomaalida gobolkee ugu qurxoon dalxiis u tegi karaa ama dalxiis ku wacan? gobollada Soomaaliya garowga dalxiis ku wacan. nugaal gobolka nugaal gobolka nugaal. aad dooratay maxaa ku dooratay marka waxaan ku doortay waa mudan yihiin asaa mudan aad ma santa